waxaan kuugu codeeyaan fartayda kuu siiyay anigoo 13 sano dacwada ku jiray inaan cadaalad helo hadii madaxweynaha cadaalad siinahayn hal iga qabta nimankan odayaal dhalinyaro waayeel haween warbaahinta kula hadlayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay beer ay ku lahaayeen aroori oo u dhow duleedka magaalada Burco oo ay sheegeen in garsoorka gobolka Togdheer ciidan sharci u haysan uu uga xukumay waxaana madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku baaqay wasiirka arrimaha gudaha in arrintaasi wax laga qabto gudbinayna cid ay qusayso madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland wasiirka dakhliga shanta nabadgelyada gobolka Burco Togdheer waxaan ka codsanaynaa bulkiyada beerta mulkiyadeedu 85 ay tahay ee golajoogga ay tahay kuwii jaararkuna ay golajoogga yihiin sida looga faramaroojiyay mulkilihii beerta sharciga u lahaa waa arin aad iyo aad u la yaab badan run ahaantii waxaan codsanaynaa arintaas in maxay ahayto ay si cadaalad ah arintaas maxay ahayto ay wax laga qabto waxa hadaba la yaaba qofkii mulkiyadiisa 85 ee maxay ahayto ay ugu duwan gashaneed wasaaradda beeraha oo waraaqaheedii kuwan ay yihiin haysasho ayaa laga xukumayaa waxaad yaad la yaab badan ka tagi mayno cid yeelana mayno cid baa loo xukumay annaga ala shariisteedka mulkiyadii lahayaa jaarkii baanu haynaa cidaanu ka yeelayna waa loo xukumay sharciga waanu haysanaa shariisteedkii weeye waxaanu haysanaa markhaatiyadii dariskii baa cadeynaya hadii dawladdu ay wax qabanayso arrinta waan leenahay wax laga qabto hadaan cadaalad jirin oo la leeyahay cadaalad ma jirtana yaa nolol sheego anu ka hadlaynaa arrintan odayaashii hore ka hadleen beerta ilmo maxamuud ee la haysto ee lagu qoray waa la qabsaday waa laga tagay waxaanu codsanaynaa cid kasta qusayso guddiga nabadgelyada wasiirka cadaaladda wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne beertii ilmo maxamuud cali maxamed waxa weeye agoontii beerteedii baan ku hadlaynaa sharci darra lagu qabsaday waxa weeye waraaqa beena loo samaystay oo ah haddii mid ka leeyahay ku qabso wasiirka dakhliga maxaan ku yiraahdaa shanta nabadgelyada maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare waxaanu ka codsanaynaa arrinkaas si degdeg ah wax looga qabto sharciga wadanku leeyahay dastuur buu leeyahay anagu sharci baanu haysanaa waa 85kii arrinkaas si degdeg ah waxa looga qabto waxa weeyaan halka waxa lagu xukumay baa leeyahay yani qabsasho iyo dad lagu xukumay dadna waxay leeyihiin sharciga noocaas ka kooban bay leeyihiin waxa weeyaan waxaan leenahay cadaaladda ha loo soo noqdo cadaaladda dib ha loogu soo noqdo cadaaladda ha laga tago waxa weeyaan anagu xaqayga u taaganay mar walba aanu taaganahay 85kii dawladii afweyne iyo taa maanta aynu joogno inta u dhaxle ninka mulkiyada haystay ee halka lahaa waxa la yiri waxa lagaga qaaday qabsasho waxa la yaab leh oo qofkii bini'aadmihi la yaabaya oo ka fajacsan yahay waxaynu ka cararnay xaqdar waxaynu ka dagaalamay xaqdar waxaynu waqti ku burburinay waxaynu raggeenu oo dhan ku leeynay waxaynu kuwabkiya boodada kaga jabnay waxay ahayd sharci doon inaynu sharci helo ayaynu u gurman oo u dagaalanay oo u dilanay hadii sharciga laga talaabsaday kii aynu u dagaalameynay haduu ka maanta yahay haysata loo xukumay haday tahay horta waa subxaanallah anigoo kamid ah agoonta dhulka leh beertaas oo aabahay iga dhintay mulkiyada aabahayna lagu wareejiyay 85kii taa ay tahay wasaaradda beeraha aan ka duwan gashanahay mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha shanta nabadgelyada gobolka Togdheer barasaabka ugu horeeyo waxaan si sharaf leh idinka codsanayaa in dhulkayga xaqdarrada lagu qaadanayo la iga qabto dadka xaqdarrada ku qaadanaya ee maxkamadihiina aanay eegahaynin mulkiyadayda sharcigayga halku ka soo baxay aan cid iigu yeedhahaynin markhaatiyadii la ii diidan yahay ee la siinayo garab nimankii igu haystay ee wax sharciya aan sidanin mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha inta gobolkan Togdheer xukuntay nabadda ka shaqeysa waxaan idinka codsanayaa haday Burco laba wasaaradood yeelatayna ii sheega haday hal wasaarad leedahayna sharcigaygaasi halku ka soo baxay ee wali gobolka ka shaqeeya hala ii weydiiyo hala igu yeedho hawsha cadaaladda in dib loogu celiyo oo cidii waxa lahayd la siiyo agoonta waxoodii raga kala tuurta u saaran tahay ee waxay sharciyo ay sitaan ayna jirin warbixinta aanu soo gudbinaynaa waa taa waxaanu leenahay waxa laga qabto dib iyo xumaan waa Saciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga ee Gobonimo magaalada Burco xarunta